Gudoomiyaha Golaha Wakiilada Dowladda Puntland Badhan Abwaanka iyo wafdi balaaran oo hogaaminayay oo ka kala socday labada gole ee dowladda Puntland oo maanta soo gaaray degmada Baran ayaa waxa ay hoyga uu ka degan yahay degmada Baran ku booqdeen Sultan Siciid Cabdisalaan Garaad Maxamuud Cali Shire waxaana halkaas ku soo dhaweeyay wafdiga Gudoomiyaha Baarlamaanka oo hogaaminayay Sultan Siciid Cabdisalaan Garaad Maxamuud Cali Shire safarkiina balaaran oo hogaaminayay Gudoomiyaha Golaha Baarlamaanka Abdurshiid Yuusuf Jibriil Caaw aad buu u mahadsantahay waftiga balaaran xanuunaya waftiga balaaran tii madaxweynihii hore aan wixii wafti noo timaaday Cabdiweli waa waftigii labaad oo Puntland ka socota oo balaarkan iyo miisaankan leh oo nagu yimi Gudoomiyaha iyo Gudoomiye ku-xigeenka iyo wasiirada iyo xildhibaanada iyo dhammaan madaxda Puntland aad baad u mahadsantihiin safarkiina aan noogu timaadeen iyo booqashada marlabaad waxaan idinka mahadnaqaynaa safarka dheer oo soo gasheen oo gobolada Highland iyo Sanaag baa ku soo socdeen waxaan u malinayaa labada gobol hadda isu marteen deegaanka inaan waxba idinka dhignayn run ahaantii aad baa loo xiiseynayay safarkiina maanta aad baan ugu faraxsanahay aad baan idin soo dhaweynaynaa booqashada aan noogu timaadeen waa ku mahadsantihiin waxaan leenahay soo dhawaada Gudoomiyaha aad baan ugu mahadnaqaynaa isagoo cusub oo hadda fadhigu horeeyba dhamaystay inuu booqasho gobolka ku yimaado oo dadkiisa iyo dalkiisa soo booqdo isagana mahadnaq balaaran waan u jeedinaynaa Gudoomiyaha Golaha Wakiilada Dowladda Puntland Badhan Abwaanka Yuusuf Jibriil ayaa Sultan Siciid Cabdisalaan Garaad Maxamuud Cali Shire uga mahadceliyay sida diiran oo hoygiisa ugu soo dhaweeyay isaga iyo waftiga balaaran oo hogaaminayay Sultanka gobolada Sanaag iyo Highland ahna Sultanka guud ee beelaha harti Puntland waa Sultankii 27aad Sultan Siciid Sultan Cabdisalaan Sultan Maxamuud Garaad Cali Shire Sultan waa ku salaameynaa dhammaanteedna waftiga runtii aan hogaaminayo oo balaaran iyagana tahniyad iyo salaam baynu kula soconay dhammaantayo madaxweynihii dalka iyo madaxdii dalka intii aanu kaga nimi garoweynaa waxaanu kaaga sidnaa dhambaal hambalyaah oo salaana Sultan inaga gudoon adigana Sultan sharaf weyn bay noo tahay in maanta magaalada Baran ee xarunta gobolka Sanaag si balaaran lagu soo dhaweeyay sidoo kale Gudoomiyaha Golaha Wakiilada Dowladda Puntland Badhan Abwaanka Yuusuf Jibriil iyo waftiga balaaran oo hogaaminayay oo ka kala socday labada gole ee dowladda Puntland oo maanta soo gaaray degmada Baran ayaa waxay hoyga uu ka degan yahay degmada Baran waxay ku booqdeen ugaas Maxamed ugaas Maakhiri waxaana halkaas ku soo dhaweeyay Gudoomiyaha iyo waftiga balaaran oo hogaaminayay ugaas Maxamed ugaas Maakhiri aad baan ugu faraxsanahay booqashada aad igu timaadeen gurigeyga sharaf weyn bayna ii tahay inta kadib waa idin soo dhaweynaynaa booqashada aad noogu timaadeen aad baan idin soo dhaweynaynaa waana idin sugeynay dadkuna waa Puntland dalkuna waa Puntland labana noqon maayaan mana noqon doonaan waftiga sharafta lena waxaan u sheegayaa in dhammaan dadku ay inta soo dhaweynaya oo Puntland dalin ah Gudoomiyaha Golaha Wakiilada Dowladda Puntland Badhan Abwaanka Yuusuf Jibriil ayaa ugaas Maxamed ugaas Maakhiri uga mahadceliyay sida diiran ee uu hoygiisa ugu soo dhaweeyay isaga iyo waftiga balaaran oo hogaaminayay ugaas waa mahadsantahay salaan sharaf baan kugu nimi aad iyo aad baan ku bogaadinaa kaaga mahadnaqaynaa runtii soo dhaweyntaada aad iyo aad baan kaaga mahadnaqayaa ugaas sida sharaf tale adiga iyo Sultan Siciidba aad noogu soo dhaweyseen magaalada Baran sidoo kale waxaan iyagana mahadnaqayaa Cuqaasha oo hadda afka Cuqaasha uu jaac ku hadlay iyo Caaqil Cabdiqani oo runtii isaguna shaqo xoog la qabtay aadna aan u soo xiriirinay waa mahadsantihiin wixii haray ugaas كل مربان وحي شقاء نسعني عن كوضة فريسان دونا اسمدا أردن أو إسكودوبان يكل كلية جارجاربا وقاشنا وأركي دونا يمامل كقول كي كدقمدا ده واحد إنه هونتي سكوريسان دونا فردكن كموين هذا سعوتها ناين سفرنا وقصو كلني يحيى أحمد محمد رادي هي تلفزيون دولة بوتلاند مقالة برن